Kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaaraha halka kala socota waa Cawaale Official Channel. Tababaraha cusub ee Barcelona Xavi Hernandez oo durtaba helay dhibaatadii ugu weyneed ee ku haysatay kooxda Barcelona. Muxuu yahay dhibkaas? Derbigii labada Milan ee Inter iyo AC Milan oo isla rafaadeen maxay ku kala baxeen? Liverpool oo guuldaradii ugu horeysay ee Premier League iyo dhammaan tartamada Yurub oo la dhadhansiiyay. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan saaxiibayaal. Kooxaha waaweyn ee Milan iyo Inter ayaa kulan ay isku rafaadeen waxay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool xilli ay Inter Milan iska khasaarisay rikoodho ay ku badin lahayd. Hakan ayaa hoggaanka u dhiibay Inter Milan markii uu rikoodho u saxeexay isagoo aaminsan Milan oo ku orinaya maadaama uu kooxda ka tagay xagaagii hore. Laakiin Milan ayaa barbaraysay gool iska dhaliyay Friedrich iyadoo Lautaro Martinez khasaaray rikoodho kale ay heleen. Derby della wuxuu xalay ahaa kulan xamaasad leh oo labada kooxood taageerayaashoodu soo bandhigeen jawi xamaasad daqiiqadii 1 ilaa daqiiqadii 90aad ee ciyaarta. Liverpool ayaa la kulantay guuldaradii ugu horeysay xilli ciyaareedka dhammaan tartamada, waxaana 3-2 ku soo garaacay West Ham United oo marti ugu ahayd London Stadium. Labada gool ee ka dhaliyeen Fornals iyo Curtis Zouma iyo mid saddexaad oo goolkiisa ku dharbaaxay Alisson Becker ayaa West Ham guusha siiyay, halka Liverpool labada gool oo kala saxeexay Arnold iyo David Origi. Liverpool oo ku taamaysay unbeaten Arsenal inay jebiso mar uun ayaa xalay la kulantay taako ayna ka filayn kooxda West Ham. Sidoo kale tababaraha West Ham David Moyes ayay noqotay markii ugu horeysay uu garaaco kooxda Liverpool. Arsenal ayaa ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan waxaanay soo celisay kaalinta shanaad ee horyaalka kadib markii 1-0 ku garaacday Watford oo marti ugu ahayd Emirates Stadium. Goolka madiga qaybtii dambe waxaa dhaliyay da'yarka Ingiriiska Smith Rowe ayaa Arsenal ku hogaamiyay guusha iyadoo 3 dhibcood siiyeen fursad ay 3 dhibcood oo saafiya kaga sare maraan kooxda Manchester United ay kala baxaan booska shanaad. Tababaraha cusub Barcelona Xavi Hernandez ayaa durtaba qaaday tallaabadii ugu horeysay ee ku xalin lahaa dhibaatooyinka haysta Barcelona isagoo xididada u siibay dhibkii ugu weynaa ee haystay ciyaartoyda kooxda. Muddo dheer ayay ugu dambeysay Barcelona heshay ciyaartoy dhammaystiran oo taam ah aan wax dhaawac qabin. Xavi ayaa qaaday tallaabo ku xalinaya isagoo isbeddel ku sameeyay shaqaalihiisa iyo dhakhaatiirta caafimaadka kooxda Barcelona. Xavi ayaa wuxuu dalbaday in kooxda lagu soo celiyo dhakhtarkii hore ee Barcelona Dr. Ricard Bruna kaasoo haatan ka shaqeynaya magaalada Dubai ee dalka Cariga Imaaraadka. Sidoo kale tababaraha cusub ee Barcelona wuxuu bedelay shaqaalihii ugu sarreeyay ee caafimaadka isagoo keensaday Carlos Nogueira oo qayb ka ahaa shaqaalihii caafimaadka ee kooxdii hore u tababari jiray reer Qatar Al Sadd. Waxaanu ka shaqeyn doonaa qabka ciyaartoyda iyo kasoo kabashada dhaawacyada gaadhay ciyaartoyda. Barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu ka egyahay. Asxaabta nagu cusub fadlan subscribe noo saaro. Asxaabtii hore noola joogtana like iyo share noo ku dara. Mahadsanidin.